madaxtooyada Soomaaliya ayaa shalay waxay shaacisay shir ay isugu imaanayaan madaxda dawlad goboleedyada dalka kaasi oo laga arinsanayo arrimaha doorashooyinka ee dalka halka maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed uu shir uga furmayo iyagana magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya shacabka magaalada ayaa wax ka weydiinay arrinteedu arkaan shirarkan kala duwan ee ka furmaya caasimada dalka iyo sidoo kale magaalada Baydhabo marka laga hadlayo maamul goboleedyada marka laga hadlayo arrimaha imka socda doorashada marka laga hadlayo xaaladdu kolba sida ay isku bedelayso dadkan maamul goboleedyada madaxda ka ah dad dalka u shaqaynaya ma aha waa dad dibadda ku xidhan oo dalal kale u shaqaynaya haddii la taga dhuusan mareeb haddii xamar la yimaado haddii waxaan istaba wareega mid walba waxa soo amraya dibadda laga soo amraya oo Mareykan baa tagala shirka kuwa kale Mareykan baa tagala shirka kuwa kale waxa weeyaan wax dan Soomaaliyeed ka hadlaya ama ka shaqaynaya ma jiraan beredooda waxa ka dhacday ladnaan meesha la yiraahdo markay fadhiisan weyday waxay yiraahdeen waxaanu doonaynaa in la noogu celiyo isticmaalkii jawiga Soomaaliya markaad aragto waxaad ku fikiraysaa in lagu celiyo isticmaalkii gacanta loo gasho oo adduunka uu maamulo way isma maamuli karayno waxna isku sheegay karayno ismana maqlayno ismana ixtiraamayno dalkana dan looma hayo naf looma hayo mid iyo laba u ordayay waxba ma keeni karaan ummadda Soomaaliyeed uma fiicno qalaafkaas sababtu waxa weeye dalkaanu dal dhibaataysan oo mataqaana dhib badan soo maray weeye waxa weeye dal dagaal soo maray waaye qalaaf hadda ummadan uma baahno waxaan leeyahay in qalaafka la joojiyo in wixii ummadan dan ugu jirto laga hadlo waxa weeye wixii hadda dhibaato dalka ku sameeyay taariikhdii u galayaan nin alla ninkii dhibaato dalkan dhibaateeyo bari waxa la gaarayaa nin la arka taariikhdiisa dib loo baaro wixii hore u dhacay iyo wixii hadda dhacay iyo wixii dhici doono marka waxaan oran lahaa hal iska dhaafo isu jeedida iyo hebel ku xumeedan iyo qaab siyaasadeedkii waxaad moodaa inay dhex gashay wax la yiraahdo kafaara qabiilka laftiisu inuu dhex galay qoomiyada laga soo kala jeedo laftoodu ay siyaasadii saameyn ku yeesheen laakiin waxa ka weyn danta guud ee la wada leeyahay baa ka weyn marka waxaan oran lahaa danta guud ee la wada leeyahay iyo wadaniyadda ha loo soo noqdo intaas uma anagu oran lahaa wadaniyadda iyo danta guud ha loo soo noqdo hal iska dhaafo hebel ku xumee hebel baa halka ku shiray hebel ku xumee shirkiisu yaan waxba ka soo gelin iyo shirka hebel wada waxba ka soo gelin hal iska dhaafaan oran lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan u arkaa arrintaas inay tahay dad isu jeeda cadow iskama eegaan saasuma aan arkaa marka insha Allah ta'ala tawfiiqda Allah waafajiyo garashada wanaagsan Allah ku soo celiyo danta guud wadaniyadii dawladdiis markay naga burburtay waxa luntay dantii guud iyo wadaniyadii iyo karaamadii iyo dadkii oo laga biliqaystay wali biliqaday ku jiraa Ilaahay biliqaday inaga soo celiyo walaal shirkan Muqdisho uga furmaya madaxda maamul goboleedyada ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo dheeri ah oo burinaya qodobadii ka soo baxay Dhuusamareeb 3 Dhuusamareeb 2 Dhuusamareeb 1 Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Shabeelle TV Muqdisho